qofka ugu yar ee soo gaaro muuqaalkaasi aan xataa lacag heli karin halka door uu ka baqiilin qofkii haysta $10 ha ku darsado. dhismaha masaajidka jaamaca ee degmada Gurceel ayaa maraya heer gabagaba ah waxa uu ka kooban yahay dhismahan 3 dabaq oo dhamaantood lagu talagalay masaajidka. culimada gacanta ku haysta dhismaha masaajidka jaamaca ee degmada Gurceel ayaa cusubtay in laga qayb qaato dhameystirka masaajidkan iyaga oo fariin u diray walaalaha khayrka jecel ee ku sugan dalka iyo dibadiisa. kan waa masjidka jaamaca degmada Gurceel oo dhismo uu ka socday muddo 2 sano ku dhow. masjidka dhismihiisu sida aad u jeedaan wuxuu ku dhow yahay dhamaad ayuu ku dhow yahay. wuxuu u baahday qarash. waxa hadda loo soo qaaday alaab qiimaheedu 130,000 oo alaabaha loo soo qaaday. bishii waxa la iska rabaa lacag $16,000 oo dollar ah. shaqadii way socotaa lacag u baahan tahay. waxa kale oo jira shaqooyin socdo markay dhamaadaan lacag la iska rabo sida albaabada, daaqadaha iyo ragga korontada gelinaya. waxaan dhammaan ka codsaynaa dadka muslimiinta ah ee muxsiniinta ah ee codkeenu soo gaaro inay ka qayb qaataan dhameystirka masjidka jaamaca degmada Gurceel oo maraya meel gabagaba ah. waxa weeyaan meelaha uu khayrka badan ka mid tahay waa dhamaad dadkii dhamaadka sugayay ama khatimka sugayay waxaan ka codsaynaa inaad ka qayb qaataan. qofka ugu yar ee aan waxba heli karin ha uga qayb qaato 2 arrimood. $1 ugu yarna ha baxsho hana shargarayo umadaasi gaarsiiyo. qofka ugu yar ee soo gaaro muuqaalkaasi aan xataa lacag heli karin halka door uu ka baqiilin qofkii haysta $10 ha ku darsado. qofkii 100 heli kara ha bixiyo. dhammaan masaajidka waxyaalaha u baahnaa markii laga reebo wiishka iyo labada qaybood oo kale gogashooda markii laga reebo inta kale alaabihii waa la soo deynsaday. qaybo carbuunaha la baxshay. masjidka wax qarash uma yaalaan. waxaan la doonayaa in lagu soo gabagabeeyo xilli gaaban oo Ramadaan lagu cibaadeysto. haddii uu dib dhacana maalinta ciida la furo insha Allah biidnil kariim. marka aan ka qayb qaadano walaalayaalow dadkii meesha soo gaarsiiyay adinkii ahaayeen halka $1 guri jannada uga dhiso, $2 jannada guri uga dhiso, $3 uga dhiso, $10 uga dhiso, $100 uga dhiso. akoonada masjidka shaashada idinka soo muuqan doona ayaa lagu soo dirayaa. akoon salaam waa 32 69 68 69. lambarka EFC Plus waa eber 25 26 19 28 7777. WhatsApp-na wuu leeyahay waa kala soo xiriir kartaa. lambarka dahab waa markii qofkii dibadda jooga eber 25 26 22 58 7777. waxaa la rabaa marka qof walba lambarada shaashada la soo saaraya si fiican isaga fiiriya. sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamijka bangiga uu leeyahay dhammaan akoomada shaashadan soo saaran insha Allah idinka muuqda oo kuwaas ka mid yihiin ku bixideen juhdi aad iyo aad u fara badan. dhaqaalihiinni ayaad geliseen meel wax la gashada meesha uu khayrka badan inay tahay ayaad ogtihiin. marka hadda wuxuu marayaa heer gabagaba ah dhaqaalihiisuna wuu taagan yahay. khayr badan Allah inuu siiyo. waxaa la rabaa in laga qayb qaato ayaa la rabaa. waxaa suurtagal dadka in badan oo kamid ah oo laga yaabo waliba inay dhaqaale haystaan inay wali ay isleeyihiin aysan waxba aysan ka soo bixin gacantooda. waxaana hadhow laga shalaayi doonaa markii miska uu gabagaboobo oo qof walba wuxuu dhihi doonaa war daartan dhisan oo Ilaahay daartiisa maxaad ku darsatay. marka in kasto qof walba macnaha intaysan ku dhicin arintaas waxaan leenahay dadku dhagahooda ha furaan, aragooda ha furaan. beedka Ilaahay qof waliba wuxuu ku darsalahay ha ku darsado. waqtiyaal aad u dhow insha Allah inta Ilaahay gaarsiiyo ayaa oo soo gabagaboobi doona. masaajidka jaamaca ee degmada Gurceel ayuu dhismihiisu soo maray marxalado kala duwan waxa uu haatan marayaa heerkii ugu dambeeyay iyadoo oo la filayo in la dhameystiro dhismaha masjidkan inta aan la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay naga xigto wax ka yar 60 cisho. Cabdinuur Ciise Qalamed, Gurceel.